barnaamijkeenan waxaynu ku soo bandhigaynaa oday waayeel ah oo da'diisu 80 ku jirto kaasoo muddo 40 sano ah oo noloshiisa kamid la noolaa raxan waraabayaal ah oo dugaaga kamid ah. odaygan oo u dhashay dalka Jarmalka waxa loogu yeeraa Ferdinand Corin waxaana uu ahaan jiray askari hore. sanadkii 1972 ayay ahayd markuu yeegleelay xaruntan uu kula nool yahay waraabayaasha, isagoo markii hore ku bilaabay inuu ku rabeeyo waraabayaal dhal ah uu ka soo ururiyay beeraha xayawaanka lagu xanaaneeyo ilaa uu ka dhigay raxan dhan oo badankoodu ay ku soo raboobeen gacantiisa. ilaa waqtigaana Mr Ferdinand waxa uu ahaa xerada waraabayaasha ilaa markii dambe loogu magac daray ninkii waraabaha ahaa. qisadiisuna waxay noqotay mid in badan ka yaabisay aadamaha maadaama ay waraabayaashu yihiin xayawaanada dugaaga ah ee ugu kulul in la rabeeyaan ay adag tahay. waana xayawaan dhowr meel ka soo uriya dhiigga xoolaha, iyaga oo marka ay soo weeraraan tiro xoolo ah ku dadaala inay la haraan neefka ugu shilis. haddaba odaygan waxa uu hadiya koo dhex joogaa waraabayaasha isagoo u soo dila ugaadha keymaha ku jirta kadibna la wadaagaya cunitaanka hilibka qaydhin, waxaana uu noqday mid iyaga kamid ah isagoo la noolaa xilli ka badan intii uu la soo noloshiisa la soo qaatay xaaskiisa. waxaana muddadii hawsha hayay uu gacantiisa ku rabeeyay ilaa 70 waraabe, waxaana uu la qabsaday dhammaan dhaqamada ay waraabayaashu leeyihiin. ugu dambeyntii odaygan waxa habeenada kamid ah boqnoqoostay koox kamid ah waraabayaashu xanaaneynayay iyada oo booliska Jarmalka